kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiyo Samatar oo ku dhaaratay inay meel marin doonto sharciga jinsiga ee ka hadlayo arrimaha khaniisnimada iyo sidoo kale Sacdiyo Yaasiin Samatar oo weerar afka ku qaaday culimada Soomaaliyeed sidoo kalena tilmaamtay in sharcigaasi uu dhowrayo xuquuqda haweenka waa bilaabay waana dhameystiraya ilaahay waxaan hor ballantiina ku qaadaya ama inaan Muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo yabo ku wareejiyay xilkaasi sidoo kalena sheegay in xilka uu wareejinayo uu yahay mid fake ah oo wax la xukumayo uusan jirin Cali Yare oo xaqiijiyay in wali uu taageersan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdiyo Yaasiin Samatar ayaa weerar afka ku qaaday culimada Soomaaliyeed xilli ay ka qayb galeysay kulan looga arrinsanayay dhowridda xuquuqda haweenka xildhibaanad Sacdiyo ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay la kulmaan xadgudubyo joogto ah isla markaasina culamaa u diinka ay kala kulmaan hanjabaado intooda badan dhibaato joogtana ay ku qabaan xildhibaanad Sacdiyo ayaa wacad ku martay in Muqdisho ay ka tagi doonto haddii ay ku guuldareysato in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo sharciga jinsiga kaasi oo difaaci doono gabdhaha xadgudubka lagu samaynayo siday hadalka u dhigtay sharciga Sacdiyo Yaasiin Samatar ay u ololeynayso ayaa ah mid baarlamaankii hore ee tabnaad ay diideen in la ansixiyo maadaama sharcigaasi uu ku jiro arrimo ka soo horjoodo diinta islaamka ee qowmuluudnimada xuquuqda haweenka in ay u doodo ayay sheegtay inay diiradda ku saari doonto sidii loo ansixin lahaa sharcigaasi xildhibaanad Sacdiyo waxay tilmaamtay in xilligan haweenka Soomaaliyeed awood badan ay ku dhex leeyihiin dawladda sidoo kalena taasi iyadoo laga duulayo xuquuqdooda ay soo dhacsan doonaan laguna dadaali doono in sharcigaasi baarlamaanka uu meel mariyo horta 72 firqo oo nabiga Cali salaam diinta lagu sheegay hadda lagu jira nimanka sheekhyada sheeganaya sheekh mawda aha sheekh waxa aninka ani badbaadiya oo al-shabaabka iga celiya sheekh waxaan u aqaanaa ninkii sharciga igu dhowra islaamka ani horta 14 iyo boqolka quraanka wuxuu qabo ayaan qabaa ani wax kalena ma rabo waxaan ballan qaadayaa sharcigan inaan baarlamaanka gudihiisa ku sameeyno gudiga xeer hoosaadka nala jooga gabadha xuquuqaysa waligeed horta annaga gabdhaha ayaga isliida ma ogiye maanta laba gabdhood oo gudiga haysana gudiga arrimaha bulshada oo baarlamaanka gabarba ah oo wali aad active ah xuquuqul insaankana xildhibaanada intii Soomaaliya dadka ugu activesan bay ahayd annaga mid baa idin sheegina kitaabka gabdhaha Soomaaliyeed baa ilaaliya iyagana lagu xadgudba annagoo kitaabkii haysana la ilaaha illa Muhammad rasuulullah baa lagu xadgudba gabdhihii la fuulaya oo gabdhihii laga waxaynaya ani Soomaalida waxaan leeyahay war maxaa u dhaleysaan gabdhaha hadii aydan project gareyn karin waaya u dhash aabo ugu tahay aniga oo lay kufsaday aniga hooyaday masuuliga ma aabahayna masuuliga ma walaalkayna masuuliga ma hadaba lay kufsaday aan fiktan baan halkaas aan taagna waxa project kali difaaci kara waa sharci gabar la kufsaday hooyana male qabiilna male laandheerana ma aha waana been horta runta waxa ogaataan dadka la kufsaday tacaddi loo gooyo kulli waa minority-ga حتى الشباب كدتك إسقرحية وماينورتي لاندير اسمه مقرحية صارت أسا واحد لا يا أسا واحد سمينا هون مركل يسكو شيء مالن أيام وحن كالله كوكسي ولا وده وجا نيمان وحن كالله يعني وكوكسي أو أنجوب شوقها واحد يسوي جوابي أو براها بالشدة إسقبتين أو ميلو البكا قيلين نيمان قلال كحيران أو قاركد شيخ شيغانيا شيخ هبل إنجليز كجوجا ninkaas aniga waxa ka dacweeyay wuxuu joogaa wadan xor ah wuxuu ku haystaa baasaboor ninkaas
wuxuu ii caayay ama ii aflagaadeeyay ama gabdhaha kale u hanjabinayay inaan laga hadlin kufsi aniga waxaan ahaa xildhibaan hore baarlamaanka 275 ayaa markhaanti iiga ahaa iyo ilaahay anu dadka feminista sideedaba ma ahin mana aha dhaqankayga inaan gabar iyo wiil u kala eexdo ama dadka aaminsan sidoodaba gabar baasaan inbeesha waxaan dhaliilaa gabdhaha feministaha iyagoo run ay ka tahay oo gabar dhibaataysan caawanaya anu ma arko ayadoo dhaqaale aruurinaysa ma arko anaa eedeeya gabdhaha feministaha ah hadal ahaan ku dhawaaqa mana aaminsani gabar Soomaali ah oo feminista ay ka tahay sababta dhibaatada aniga ku jirnaa aan ku jirnaa waxaan dhaliilaa meel kasta waxa dhaha haweenka waxa saaya haween oo tirada badan sababta u dhaliila waxay tahay maxaan u weynaa hal dalada anaga noqosaysa oo meel ah marka waxa raba inaad ka daba tago nin waxa jooga Canada intuu iisoo istaagay meel bay ku jirtaa wuxuu joogaa wadan sharci ah oo Canadian safaaradoodii waxay ku taalaa Muqdisho ku taalaa kan Ingiriiska iiga soo hanjabaya oo dhahay gacanta lagu diray sharci buu haystaa safaaradiisina waxay ku taalaa Ingiriis ana horta mid baan rabaa ballan inaan qaado ninka isku daya anigana iska bilaabo ninka isku day inuu anaga baraha bulshada nooga hanjabo oo dibadda jooga wuxuu aaminsan yahay sharciga uu haysto inuu ku badbaadayo asagoo gabadhiisii ama gabadhii walaashiisa ahayd ama gabadhii la dhalatay la kufsaday oo raba inuu mara saar sababta ayaga banaanka ku kufsada waxa ogtihiin Mareykanka ha ahaato oo Yurub ha ahaato ragga u xiran oo gabdha qabsaday timiin oo ka badan inta hooyo single mother waxa ka tagay waa rag ma aha ani inta fiican ragga aan wax ka sheegaa inta 31 sano ina baabiinaya anaga qori gabar haysata ma jirto gabar wax kufsatana ma jirto gabar sharci ku xadgudubtana ma jirto waxa sidaas sameynaya waa rag laakiin aniga waxa aan dacwo ka ah oo rabaa nimanka dibadda jooga oo baraha bulshada soo fariista oo hebel la dhahay oo qof kasta la helay isagoo passport Swedish haysta Norwich haysta Danish haysta Mareykan haysta Australian haysta inuu iiga soo hanjabo halka asagoo moog in safaaradiisa ay ku taalo Muqdisho ada safaaradaadi Muqdisho ku taalo ani ima dhaaran karto wallahi baydan cid u soo dhaaran karin inaydan cid u soo hanjabi karin al-shabaabna inaydan ku soo garab siin karin kuwa waxa arkaysaa wariyaal isku sheegaya oo dhahaya maanta waxa hebelowgii ay dad ku laayeen khawaarijtii ayuu buunbuuninaya fiiri meydkii wuxuu soo dhigaya askartii iyo ciyaaladeennii markaasuu wuxuu rabaa inuu dibadii marka uu ku badbaado wallahi ku badbaadin adigan waxa ogaataan nimanka aniga wax kale ma dhahayo qodobkan wuxuu soconaya ninka wadaadka sheeganaya oo aaminsan in gabar la fuulay oo aayad ma iigu soo dariilin karaa أنا Soomaali ay hal wax baan rabaa inaan maanta waligay gabar uma doodin kufsiga soo dhaxgalay aan waa bilaabay waana dhameystiraya ilaahay waxaan hor ballantiina ku qaadaya ama inaan Muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa xilka ku wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee xilkaasi uu u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Cali Yare Cali ayaa sheegay in kalsooni ay ka waayeen madaxweyne Xasan waxa uu sidoo kale sheegay in uu wareejiyay xil aan jirin oo fake ah isagoo sheegay in kursigan dhanka amniga u qaabilsan maamulka gobolka Banaadir uusan awood lahayn Cali Yare ayaa sidoo kale sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan ku qaldanayn inuu xilka ka qaado isagoo ku faanay in wali uu daacad u yahay farmaajo waxaana xubnaha cusub uu kula dardaarmay inay daacad u noqdaan madaxweynaha kalsoonida siiyay ee soo magacaabay Cali Yare Cali ayaa aad u amaanay gudoomiyaha lagu bedelay oo sida uu sheegay aad u yaqaano shaqada loo soo magacaabay wuxuuna kula dardaarmay in dadka reer Muqdisho uu dhaxal uga tago waxaan halkan ku wareejinay waa مسؤولية إن لو رجيو أو عن صاحبنا نعصب كورجينا معناه واحد ويا أنا أقول وحاول إن كرسوني دي مدحوينها يجونا وحيها كرسوني دي مدحوينها مدة أسبوع حيلة مدحوينهم كم قدرة
bal waaba ku saxsanya sababtu nin saaxiibada kamida mar raba magaciisa inaan sheege yaa wuxuu yiri halkaas iga hor yimid ka Allah ku gurido adigaana martay yo igu yiri marka waxaan warniyo anigu ogaa amalkan hormarsadaan ogaay inaan la ii shafaaco qaadi karin waa ii muuqatay waxaan islahaa ama isagu ka sahlan yahay laakiin barashadu waa dhib ma leh muxuu ahaa barashadu waa dhib ma leh haddii shaqo lagu jiray annaga madaxweynaha magacaabay waana run oo qalbiga qofku laba ma aadi karo kulib aniga dhaqan ahaan siday iga tahay madaxweynaha hore aan magacaabay kalsoonideena madaxweynihii hore jirtay sidii u jirtaa weli macnaheedu marka ma aha inaan ka soo horjeesanayno dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo